الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan halkan kasii wadanaynaa casharkeennii imtixaanaha ahaa ee Tally ERP9 softwarekaas oo isticmaalaan kambaniyada ama ganacsiyada yararka ah. Softwarekan waxaan hore usoo qaadanay casharo kala duwan, haddana waxaan sii wadi doonaa casharkeennii oo imtixaanayno ahaa. Marka waxaan rabnaa maanta inaan maanta isla wadaagno laba transaction ama laba dhacdo. labada dhacdo oo la xiriirta purchase-ka iyo sales-ka. waa dhacdadan 15 bisha afraad dhacday 2010 iyo dhacdadan oo dhacday 30 bisha afraad 2010. labadan dhacdo oo ah labadan dhacdo oo la xiriirta tan hore la xiriirta purchase oo marka wax soo iibsatay, deyn ku soo iibsatay, inaad muddo ka bacdi deynta aad bixisay sida khaanada loo sameeyo markaad deynta bixinayso. iyo tan oo ah markii lagaaga iibsado alaab deyn, marka deyn lagaaga iibsado muddo ka bacdi deynta marka lagu keeno lacagtaada lagu keeno khaanada sida loo sameeyo. intaa kale waa soo wada qaadanay oo hore ayaa usoo qaadanay. haddii aan faahfaahiyo mar labaad, waxa waaye company ama shirkad mataqaana baabuurta taayiradiisa lagu iibiyo ayaan waxaa asaastay nin la dhaho Caadil Start Business Cash ayuu ku biloobay lacagtaasoo gaaraysay $300,000 ayuu ku bilowday. marka sida khaanada loo asaaso hore ayaa usoo dhiganay. khaanadan labaad oo ah inaan marka kambaniga asaasanay oo lacagtu ninkaasi haystay ayuu wuxuu sameeyey. ninkan wuxuu soo iibsaday taayiro ayuu soo iibsaday 10 taayir ayuu soo iibsaday oo cala taayirka uu ku fadhiyo lacag $3,000. markuu taayirada 10 xabba soo iibsanayay wax khaanadiisa wax lacag ah oo jeebkiisa ma isticmaalin, deyn ayuu ku soo iibsaday 10kii xabbaba. marka dhacdada saddexaad oo ah purchase dhacdada saddexaad waxa waaye inuu lacagtiisa ownerku isticmaalay, wuxuuna soo iibsaday 20 taayir ayuu soo iibsaday. 20ka taayir cala taayir wuxuu ugu fadhiyay $2,000 oo tan lacagtiisa ayuu adeegsaday, laakiin tan wax lacagtiisa ma adeegsan oo tan wuxuu kusoo gatay deyn ayuu kusoo iibsaday. marka muddo 15 bisha afraad 2010 5 cisho ka bacdi ayuu wuxuu rabaa inuu deynta iska gudo oo deynta bixiyo oo ah dhacdadan inagu cusub casharkeena. marka dhacdadan waxa waaye sida loo sameeyo khaanada ama sida loo sameeyo daaqada mataqaana markaad deyn bixinayso oo aad deynta aad gudayso. tanna waxa waaye sold in lagaa iibsado 8 taayir ayaa lagaa iibsaday. 8 taayir waxa lagaaga iibsaday lacag ayaa lagu siiyey, paid cash ayaa lagu siiyey. qofka taayirada 8 sax buu qaatay, cala taayir wuxuu ugu fadhiyay $4,000 baad ugu dhufatay oo cash lacagtiisana uu ku siiyey. dhacdadan saddexaad ayaa waxay noqonaysaa 15 taayir ayaa lagaa gatay 25 bisha. 15 taayir markii lagaa gatay cala taayir waxaa ka siisay $3,000, laakiin wax lacag kuma siin, waxaana kaa iibsaday nin la dhaho Akbar. marka ninkan wax lacag kuma siin, wuxuu ku yiri waa customer-kaaga ama macmiil kamid ah macaamiishaada, wuxuu yiri lacag ma haysto 15 taayir si cala taayir waxaa ugu dhufatay $3,000 oo uu ka qaatay. marka dhacdadan waxay la xiriiraysaa in alaabta deyn ku bixisay sida loo sameeyo oo dhacdadan ay la xiriirtaa 30 bisha afraad 2010 oo ah khaanada receipt oo lagu keenay $35,000 ayuu ku keenay Akbar on cash ayuu ku keenay oo biilkiisu ahaa JJ101 oo warqadda mataqaana biilka. markan iyo khaanada labaad ayaa isla ogaanayna oo ah marka sida loo sameeyo marka lacag lagu keeno oo lacag customer-ka macmiilka ku keeno sida khaanada iyadana loo sameeyo ayaan isla ogaanaynaa. tanna waxay noqonaysaa inaad bixiso advertisement oo expenses oo kharashaada. taa hore ayaa usoo dhiganay, tanna hore ayaa marka waxaa nagu cusub maantay labadan dhacdada 15 bisha afraad ah marka purchase marka wax soo iibsato oo deyn ku soo iibsato. markaad deyn ku soo iibsato muddo ka bacdi aad lacagta bixinayso oo qofkaad alaabta ama bakhaarka alaabta ka soo iibsatay ama meesha alaabta ka soo qaadatay aad lacagta bixinayso. iyo tan oo ah in alaabta adiga lagaaga iibsaday deyn, marka alaabta deyn lagaaga iibsaday muddo ka bacdi lacagtaada lagu keenay oo sida loo sameeyo khaanada. marka waan arkaynaa dhammaan waa soo wada bilaabaya oo wax kasoo bilaabaya sida loo sameeyo mataqaanaa khaanada oo ownerka khaanadiisa sida loo sameeyo ama transaction meesha ka bilaabanay. halkaas ayaa casharkeena kasoo bilaabaya. marka waxaa u baahanahay inaan kambanigii asaasno. marka kambaniga asaasayso hore ayaa usoo dhiganay, meeshan ayaa ku dhufanaysaa meesha ku qorantay CMB inform ayaa ku dhufanaysaa. markaa ku dhufato waxaa leedahay create company oo u dhigmaysa kambani cusub inaad asaasato. marka halkan click ayaa leedahay, dan waa ka name waxaa ku qoraysaa kambaniga magaciisa ayaa ku qoraysaa. marka kambaniga magaciisa waxaa la dhahaa global wall ayaa la dhahaa 212
oo magaciisa ah. Marka enter ayaa leedahay, tan enter ku dhufan, kan addresska meesha ku yaala waad ku qoraysaa xaafadda ku yaalo ama agagaarka ku yaalo tan iska baasaya. Hindiya ani meesha joogo waa Hindiya ama waddanka ayaa gelinaysaa ama meesha aad joogto kambanigaaga meeshuu joogo ayaad gelinaysaa. Tan halka waxaad gelinaysaa state-ka oo magaalada aad joogto, kambanigaagu magaalada aad joogto state-ku mataqaanaa uu yahay ama magaalada mataqaanaa waddanku waa state-yo badan yahay. Marka ani state-ka joogo waxa waaye Andhra Pradesh ayaa la dhahaa. Halkan waxaad gelinaysaa state kasta marka wuxuu leeyahay pin u gooniya. Halkan waxaad gelinaysaa telefoonka nambarkaaga 9160230152 enter. Halkan waxaad gelinaysaa emailkaaga, laakiin waa iska sii baasaya. Enter ayaa leedahay, enter. Marka kambanigeenna waa inoo asaasmaya, waan asaasanay. Waxaan u baahanahay dhammaan inaan transactionadaas oo dhan aan gelino oo hadhowna journal entry-ga aan aragno. Horta waxaa muhiim ah inaan journal entry-ga fahanno. Haddaad journal entry-ga fahanto aad iyo aad ayuu u fududaanaya software-ka inaad isticmaasho. Waa software-ada kale oo dhan waa kuu fududaanaya. In horta wax loo baahan yahay basic finance knowledge aad taqaanid, oo haddii aad transactionadu sida loo sameeyo ama aad taqaanid waxaa kuu fududaanaya inaad mataqaanaa muxuu ahaad aad isticmaasho khaanadaha. Marka waxaa leedahay escape baa leedahay qaybta bidixda computer-ka. Dan halka waxaad taabanaysaa account feature ku qoran tahay, khaanadaas ku dhufanaysaa, dan halkana kuu soo baxaysa. Marka waxaan rabaa lacagtii oo ku bilaabay businesska Mr. Adil, waa kan lacagta ku bilaabay businesska maxay $300,000. Marka journal entry muxuu noqonayaa Mr. Adil start business cash into business $300,000. $300,000 ayuu ku bilaabay. Marka journal entry ahaan maxay noqonaysaa cash account to Mr. Adil capital account ayay noqonaysaa, oo debit credit must be equal. Debit credit waxa waaye khasab inay isleekaadaan. Waxa debit ku jira inaad credit geliso waa inay isleekaadaan. Marka waxay noqonaysaa journal entry ahaan cash account to Mr. Adil capital account. Marka waxaa sameynaya khaanadii waan gelinaya. Marka waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay receipt oo ah F6 already waa ii joogaa. Marka credit maxaa ahaa Mr. Adil. Marka waxaad taabanaysaa Alt C oo khaanadii ayaa sameynaysaa, khaanadii mataqaanaa ninkii ownerka lacagtiisa ayaa gelinaysaa. Alt C ayaa leedahay Mr. Adil capital. Adil capital meeshan ku qoranta under waxay hoos tagaysaa capital account ayay hoos tagaysaa oo khaanadan list of group by default ahaan ayay ku jirtaa oo software-ka ku jirtaa. Marka waxay hoos tagaysaa capital account oo ah ownerka lacagtiisii. Dan waa dhaafaysaa, dan enter ayaa leedahay save. Halka waxaad gelinaysaa lacagtii uu ku bilaabay ganacsiga $300,000. dan waxaa leedahay save. Marka by cash meesha asaasi cash meesha waxay ku jirtaa by default ahaan. Enter ayaa leedahay, dan enter save ayaa leedahay. Marka lacagtii waan save garaystay oo transaction-ka dhacdada u horreysay waan sameeyay. Dhacdada labaad ayaa gudbaynaa purchase, inaan alaab soo iibsanay. Waxaan soo iibsanay 10 xabo tire ayaa soo iibsanay. Waxaana ala tire ku fadhiyay $300,000, laakiin wax lacag ma aynu bixin oo deen ayaa ku soo qaadanay. Marka khaanadaas si loo sameeyo hore ayaa casharka lagu soo qaadanay, haddana waa sameynaynaa. Marka waxaad tagaysaa purchase oo ah F9 waa kan. Halkan waxaad gelinaysaa reference number qofka alaabta ka soo iibsatay, reference-igu ku siiyay ayaad gelinaysaa. Reference number bill numberka waa kan 5101 enter ayaa leedahay. Meeshan waxaad gelinaysaa party name oo qofka aad alaabta ka soo qaadatay deynta aad uga soo iibsatay wax lacag ma aad siin. Waa kan waxa waaye waxa la magaciisa Rehan ayaa la. Marka meesha waxaa asaasaysaa Rehan ayaa asaasaysaa oo waxa leedahay Rehan ayaa alaabta ka soo qaadatay. Haddaan journal entry ahaan isla fiirino waa tan purchase account to Rehan shop account oo dhihi mayno purchase account to cash account sida tan labaad oo kale dhihi mayno, waayo wax lacag inagu ma aynu bixin oo deen ayaa kusoo qaadanay. Marka meesha buuggaaga markaad qorayso ama dhacdada qorayso waxaad qoraysaa purchase account to Rehan shop account oo waayo wax deen ayaa kusoo iibsanay, wax lacag inagu ma aynu bixin. Marka halkan waxaad ku qoraysaa waxaa leedahay Alt C waa leedahay. Alt C macnaheedu waxa waaye khaanada si loo asaaso ama daaqada oo kale. Alt C ayaa leedahay Rehan shop ayaa leedahay. Rehan shop wuxuu hoos tagaya sundry creditors hoos tagaya oo marka adiga purchase aad alaab soo iibsato waxay hoos tagaysaa sundry creditors. Marka adigu sell
wax iibinayso oo alaabta deyn laga qaato waxay hoos tagaysaa sundry debtors laakiin hadda Rayhan shop waxay hoos tagaysaa sundry creditors waa deyn inaga lagu leeyahay dan enter ayaa leedahay enter ayaa leedahay save ayaa leedahay save halkan dhacdada labaad oo qaanada purchase ledger waxa asaasaysa purchase oo ah wax iibsiga qaanada iibka ayaa asaasaysa alt c ayaa leedahay purchase account wuxuu hoos tagaysaa aan muxuu purchase account halka waxa ku qoraysaa purchase ku qoraysaa halkan automatic kan uga soo baxayso halkan ka dooranaysaa halkaas ku dhufanaysaa inta markaa ka jirto enter ayaa leedahay halkaas ku soo qoraysaa purchase account marka purchase account wuxuu hoos tagaysaa purchase account save ayaa leedahay marka halkan waxa name of item alaabta soo iibsatay ayaa asaasaysaa oo magaceeda ayaa qoraysa marka alaabta soo iibsatay taayir ay yahay marka waxa leedahay alt c marka asaasayso qaanada ama daaqada asaasayso alt c ayaa taabanaysaa oo ama akoonka asaasayso alt c alaabta soo iibsanay maxay ahaayeen taayir ayay ahaayeen oo ah 10 xabo taayirahaas oo leh mrf taayiris baa leedahay mrf marka qaanadeena ayaa gelinaynaa taayiris mrf under wuxuu hoos tagayaan taayirada waxa waaye taayirada baabuurka vehicles ayaa leedahay oo taayiradu waxay hoos tagayaan vehicles waxa leedahay qaanad kasta waxay leedahay alaab gooni ah qaar kasta qaybtan waxay qaabilsan tahay baabuurta ayaa leedahay vehicles meesha ku qoranta units waxyaabaha lagu cabiro maxay waa numbers baa leedahay alt c ayaa leedahay numbers baa qoraysaa tan halka waxa waaye form of name meesha numbers ku qoran tahay waa soo gaabinaya NOS waa short form accept ayaa leedahay then kor ayay u laabanaysaa meesha ku qoran tahay costing method waxa ka dooranaysaa FIFO macnaheedu waxa way hore soo qaadanay FIFO waxa way alaabta aad ugu soo hor iibsatay purchase-ka ahayd inaad isla alaabta aad ugu hor iibiso oo alaabta aad ugu soo hor iibsatay alaabta ka dambeysay iibmaysa alaabta aad ugu soo hor iibisay ayaad dan ugu horgadaysaa marka alaabta imisa xayaba inta xaba soo gadanay ayaa rabnaa inaan ogaano waxaan soo gadanay 10 xaba ayaa soo gadanay calaa taayirka wuxuu noogu joogaa $3,000 ayuu noogu joogaa 10 tires baa leedahay 3000 ayuu calaa taayir noogu joogaa dan enter ayaa leedahay enter waa save garaysanayaa qaanada oo waa ka hadhow halkan ay soo baxaysa marka lacagta deynta bixinayo waxaa inoo soo baxaya 5101 oo ah biilka nin qofkuna siiyey oo reference sunu hadhow ku aqoonsanayno biil ahaan enter save gareeyay marka qaanada ku xigto waa maxay ama tarshashka labaad waxa baxay waa purchase waxaan soo gadanay 20 xabo taayir ayaa soo iibsanay 20 ka xabo على طائر wuxuu ku fadhiyay $2,000 ayuu ku fadhiyay marka hadii 20 waxaha $2,000 20 xabo taayir soo iibsanay على طائر wuxuu ahaa $2,000 marka tan waxa bixinay by cash oo lacag ayaa bixinay wax deyn kuma soo qaadan waa on cash hadayr wax ku soo iibsanay muxuu each from Rayhan shop hadayr deyn ay ku soo iibsanay hadana wax deyn kuma soo iibsanay 20 xabo lacagtan qaanadan ay jeebkan ay isticmaalnay oo lacag ayaan ku soo iibsanay marka waxa hadaan journal ahaan inta u eegno waa tan purchase account to cash account oo waxa waa transaction saddexaad waaye oo purchase wax soo iibsanay to cash lacag ayaa bixin hadaa yar lacag ma inuu bixin Rayhan shop ayaa ahayd oo meeshan booska lacagta hadda ku qoran qofka alaabta ku soo iibsanay magaciisa ay ku qoranayso hadaa lacag ma bixin laakiin hadda lacag ayaa bixin waa purchase account to cash account marka qaanadan waa sameysanaynaa meeshan ay tagayna taayirada sabsan halka ku qoran reference number hadaa wax gelinay reference numberkan hadaa yar gelinayno soo maaha oo ahayd 5101 hadda deyn kuma iibsan lacag ay ku siibsan soo maaha waxna reference uma baahnin reference waa iska dhaafaysa enter ayaa leedahay meesha ku qoranta party name haddana ninka magaciisa ay gelinaynay oo dhahaynay magaciisa Rayhan shop ku qoranay Sunday creditors hadda cash ay ku iibsan oo lacag ayaa siinay meesha cash ay ka dooranaysaa cashna by default ahaan ayuu baalka ku jiro oo baalka ayuu la socdaa enter ayaa leedahay meesha ku qoranta purchase already waa soo asaas akoonka haddaan rabo inaan mar labaad dabcan asaaso baalku iga diidaya marka waxa leedahay enter okay waxaan asaasaya taayirada ay qaanada taayirada ayaa asaasaya oo taayiro cusub ay soo iibsaday soo maaha alt c ayaa leedahay tires shovel taayirada magaca waxa la tires shovel ku hore maxay ahaayeen tires MRF ahaayeen waa kuwan tires MRF kuwan waxa la tires shovel
waa kala duwan yihiin marka kuwan ayaa soo gatay ayaa leeyahay oo sameynaysa qaanada ayaa sameynaysa dan enter ay leedahay enter waxaa leedahay primary wixii hoos tagaya meeshaas hadda u qoran tahay mulida primary vehicles baabuurta ay hoos tagayaan qaybta baabuurta marka hore ayaa usoo asaas u sameeyey marka mar labaad in asaaso lagama baahno oo wax automatic ayuu waxaan waa automatic ahaan software-ku marka vehicles ayaa ku dhufanaysaa meeshan ku qoranta units waa numbers baa leeyahay hore ayaa usoo samaystay dan okay baa leedahay meeshan ku qoran tahay fifa waa deer waxaas dhan soo mar marka si automatically ii sheegay marka save ayaa leedahay inta xaba soo gatay 20 xaba ayay ahaayeen على حب $2,000 ayuu joogay total waxay noqonaysaa $40,000 ayay noqonaysaa dan alta ay leedahay alta save waa save gareystay dhacdadeena afraad waxay noqonaysaa oo ah dhacdada caawin maanta nagu cusub oo ah paid rehan shop 22,000 ayaa bixinay oo biilkan wax wahay 5.01 waa biilkan waaye ninka alaabta ka soo iibsanaynay ayaa waxaanu siinay lacag siinay muddo 15 bish afraad ayaa siinay 5 cisho ka bacdi ayaa deynta iska soo bixinayna qayb ka mid ah marka haddaba maxaa soo iibsanay waxaa ka soo gadanay deyn ka soo qaadanay 10 xabo taayir ala taayir 3,000 على طاير $6,000 ayuu joogay marka 3,000 hadii lagu dhufto 10 waxay noqonaysaa $30,000 noqonaysaa $30,000 ayaa waxaanu bixinay 22,000 marka hadii 30,000 laga gooyo 22,000 waxay noqonaysaa 8,000 ayaa still baaqi nagu ahaanaya ama haraa nagu soo ahaanaya inaga oo deyn ahaan marka waa qaanadan waa sida lacagta markaad wax soo iibsato aad u bixinayso sida loo sameeyo qaanada ayaa sida arkayna oo ah dhacdo inagu cusub caaway waxaad tagaysaa meeshan ay ku qoran tahay payment oo ah F5 marka F5 dhahdo waxaad dooranaysaa ninkaad alaabta ka soo iibsatay waa kan ku jira meesha Rehan shop oo ku jira already intan ayaa leedahay Rehan shop waa ka halkaas ayaa ku soo baxaysa credit balance ninkan wuxuu Rehan shop lacag ugu leeyahay oo credit balance waa lacag $30,000 ayuu inagu leeyahay hadda halkan lacagta geliyo halkaas $30,000 waxay noqonaysaa $8,000 ay noqonaysaa waayo lacagta bixin ayaa ka go'aysa laakiin hadda software wuxuu inoo sheegaya oo inoo fududeynaya lacag oo xasuusinaya lacagta in lagu leeyahay inay tahay lacag $30,000 marka lacagta ayaa halkan gelinaya 20,000 lacag Rehan shop marka dhacdo 22,000 enter ayaa leedahay enter waa ka hadeero meesha tusayay waa kan noo socdo wuxuu yiri 5101 reference oo numberkiisu yahay miyaa leedahay 22 ku bixinaysa yes ayaa leeyahay waa ka meesha hadeero 30,000 ahayd waxay noqotay hadeer 8,000 bay noqotay hadeero maxay $30,000 ay yahay maxaanu bixinay cash ayaa bixinay dan enter ayaa leedahay oo meesha daayir waxay 30,000 hadan waa maxay 8,000 oo 30,000 ayaa wax loo goonay wax laga gooynaya 22,000 lagu gooy marka back waxaan ugu still credit ka oo ah $8,000 enter ayaa leedahay dan save ayaa leedahay dhacdadeena shanaad ayaa isla fiirinayna oo ah sold 8 tires MRF 4,000 each on cash to Amjad ninka la dhahay Amjad ayaa wuxuu naga iibsaday 8 tire ayuu naga iibsaday 8 tire على تاير waxa ugu dhufan $4,000 ayaa ugu dhufan oo hadaayar inaga maxay ahayd taayirada la taqaana waa kuwan taayirada naga iibsan kuwan 3,000 ay noo jeegan hadana waxa ka siinaa $4,000 $1,000 ayaa saarsanay faa'iido ah profit marka 8 taayir markuu naga iibsanayay oo 4,000 ka siinaa على taayir wax u deyn lagu siiyay ma jirto oo kulli lacag ayuu nasiiyay wixii dhan wuxuu siiyay bayhan lacagta ayuu nasiiyay marka waxay noqonaysaa cash account to sales account hadaa fiirno journal entry-geena dhacdada 20kii bishii afraad 2010 waa tan cash account to sales account waa cash anaga in soo galay to sales oo alaabta aan iibinay oo alaabta inaga naga baxday inaga maxay noo yimid receipt inoo cash maxaan inaga baxay alaabta inaga tagaysa oo stock-geeni wax ku dhacay decrease marka waxaan tagaynaa marka wax iibsiga iisanayso F8 ayaa tagaysaa then halka reference ku qorata number wax deyn ah wax kuma iibsan inagu wax deyn wax dhaha wax lagama iibsan oo deyn macaamiisheena ama customer wax deyn ah inagu inaga iibsan ma jirto halka sideeda ayaa uga tagaysaa enter ayaa leedahay meeshan ku qoran tahay party name waxa ka dooranaysaa cash oo waxaan ku helnay inagu cash lacag ayaanu helnay enter ayaa leedahay meeshan ku qoranta sales ledger account kala dhahay sales oo wax iibsiga meesha hadda inoma save gareysnayn horay hadda ayaa raba inaan asaaso marka waxaa leedahay alt c sales account maxay hoos tagaysaa sales account purchase account maxay hoos tagaa purchase account sales account maxay hoos tagtaa sales account account iibsiga waaye oo wax lagu iibsano
alaabtaan iibina maxay ahayd tires meesha ku qoran tahay meeshaan bannaan oo dhibicda saaran tahay waxaa gelinaysa alaabta iibinaysa tires ta waa kuwan laba tire baa meesha ugu jiraba waa tires MRF baa ku jirta meeshan kuwa kora tobanaynaa oo ku iibinayna waaye inter ayaa leenahay imisa xaba ayaa iibinay 8 xaba ayaa iibinay ala tire wax ka bixin $4,000 ayaa ka siiyan waa ka 8 xabo tire ayaan iibinay oo macaamilkeena amjad la dhaho ka iibsanay $4,000 ayuu ala tire ugu dhufan marka hadii lagu dhufto 8,000 afar 8,000 hadii lagu dhufto 8 tire hadii lagu dhufto 4,000 waxay noqonaysaa 32,000 32,000 isaga baalka automatic inoo tusaya 8 tire ayaan iibinay ayaa leedahay dan inter ayaa leedahay 4,000 ayaa ka bixin ala tire waa 32,000 isaga halkaa ku sheeg amount-ga total wuxuu noqonaysaa lacagtaan helnay 32,000 noqos marka inter ayaa leedahay inter safe ayaa laga save garaysanay dhacdadeena lixaad waxay noqonaysaa in aan nin la dhaho akbar oo noo yimi macmiisheen macmiilka niyahow maanta wax lacaga ma wato 15 tayir ayaa doonaya على طائر waxay ku dhufanaysaa muxuu على طائر waxay ku dhufanaysaa $3,000 marka wuxuu yiri wax lacag ku siimayo oo muddo ka bacda ayaa lacagta bixinaya buu yiri marka okay baa yiri was good 15 tayir ayuu naga qaatay laakiin wax lacag inama u siin laakiin reference number ayaa siinay oo ah suu muddo ka bacda noo sii xasuus ah buu aan xasuusano marka khaanada si loo sameeyo hore ayaa soo qaadanay khaanada ayaa hadda asaasaynaa meesha ku qoranta reference number waxaa siinayna reference numberka meesha ku qoranta waxaa gelinaysaa numberka aan siinay reference numberka aan siinay maxay ahayd waa tan waaye aan siinay waa JJ101 markuu lacagta noo keenayo ayaa ku xasuusanayna oo xasuus inuu noqonaysaa remember ku xasuusanaysaa JJ101 ayaa leedahay dan enter marka ninka naga iibsan magaciisa waxaa la akbar marka akbar inaguma jiro khaanad hadda mataqaana software kana akbar ayaa asaasayna alt c ayaa leedahay akbar انتر يلا ده انتر اكبر محوس تجاه سندري ديبتوريس واي وسندري وديبتوريس وانا دين نجا مقان لكن مركا ادو بارتشيس الاف سو يبسنو محوس تجاه سندري كريديتوريس مركا لا دين كسو يبسنو سندري كريديتوريس مركا لكن ادو اد كسو يبس مركا اديga wax laga iibsanayo oo deen lagaaga iibsado maxay noqonaysaa sundry debtors waa deen aad u macmiilka ku lahaanayso inter ayaa leedahay marka akoonka sales hore ayuu noo asaasnaa oo amjad ayaa already wax naga iibsaday sales way noo asaaseen dad dabciina mar labaad asaaso akoonka waa iga diidaya marka sales hore ayuu hadda nagu asaasnaa akoonka waxaa leedahay si akoonka sales ayaa hoos tagaysaa inter ayaa leedahay name of item alaabta iibinay ayaa qoraynaa magacyadooda waa kan waa tires shovel ayaan iibinay haddaa ku tuso muxuu ahaa warqadeeni referencega raacayna waa tan waa kuwa taaradii waxaan la taaradii waa tires shovel waaye oo la baxaa oo awr tire shovel imsa xaba soo iibsanay 20 xaba ayaan soo iibsanay maxaan iibinay 15 xaba ayaan iibinay haddana maxay noo joogan $2,000 haddana maxaa ka bixin $3,000 ayaan ka bixinay marka $1,000 ayaa weli faa'iideyno oo ah oo saarsanay ala tire marka waxaa la 15 xaba tire ayaa gelinaysaa heesha quantity waxaa iibinay 15 xaba tire على تاير حاسين $3,000 يا سين محنا قلنا 45,000 توتال لعقت بجود أردن تن انتر يا لذا انتر سيف يا لذا واسيف برسمي خانة داسنا مركا خانة تدبات نص توا محور بيت advertisement to Times of India muxuu ahaa news ama muxuu ahaa TV ayaa noo xayisay advertisement xayisiis inoo sameeyay xayisiiska marka lacag baa naga rabaa meheradana waa expensive kharashaadka lacagta laga goynayaa muxuu inagu xayisiiyay lacag gaaraysa $1,600 marka khaanadana sida loo sameeyo hore ayaa usoo qaadan sida loo sameeyo marka expenses kharashaadka expenses bixinayso waxaad tagaysaa meeshan ku qoran tahay payment maxaa leedahay alt c advertisement advertisement waa khaanada macnaheedu waxay noqonaysaa muxuu ahaa indirect expenses ay hoostaysaa oo advertisement waa xayisiis waaye oo khaanada waxay hoostaysaa indirect expenses kharashaadka ay hoostaysaa inter ayaa leedahay lacagta aan ku bixinay maxay ahayd 1,600 bay ahayd inter maxaanu bixinay bay cash ayaanu bixinay inter safe waa safe garaysanay marka dhacdadeena toddobaad waxay noqonaysaa
receive inaan soddonkii bishii afraad 2010 ninkii la dhahayay Akbar oo deynta inaga qaatay 15 taayir ayaa soddonkii bishii inoo yimi xiriyo lacagtaadii 45,000 dollar ahayd waxa ku keenay 35,000 dollar ayaa ku keenay buuye oo lacag ayuu noo keenay marka qaanada labaad inuu isku caawatan waaye oo ah marka lacag lagu keeno sidee loo safgaray sidee loo galiyaa waxa saddex isagoo inoo keenay lacag 35,000 dollar ayuu noo keenay waxaana weli ku leenahay lacag 10,000 dollar oo waayo 15 hadii lagu dhufto 45,000 ay noqonaysaa waxaana isagoo inoo keenay lacag gaaraysa 35,000 dollar ayuu noo keenay oo waxa rimeen weli ku ahaana deen ku lahaana ninkan 10,000 dollar ayaa ku lahaana marka qaanada sida loo safgarayo oo la sameeyo ayaa arkayna haddaan journal entries la fiirino waa tan cash account to Akbar account dhimayso muxuu cash account to sales account dhimayso oo already mataqaana sales muxuu meer ninka markii ugu horeyso wax naga iibsado Akbar ma aha waa markii labaad wax naga iibsado waa markii labaad oo lacagta inoo keeno dhimayno cash account to sales account dhimayno waxa leenahay cash account to Akbar account waxa lacag ka helnay ninka loo Akbar ya ka helnay marka sida qaanada loo sameeyo waa tan waxa tagaysaa meesha ku qoran tahay receipt oo ah helid ayaa leedahay qofka lacagta ka heshiiya way halkan ku jira waxa ugu jira Akbar waa ka dooranaysa Akbar enter ayaa leedahay wuu ku sheegay waa ka wuxuu leeyahay lacagta Akbar aan inagu ku leenahay waa lacag 45,000 dollar ayaan Akbar ku leenahay oo waa kan oo halka xagga inagu qoraya xano ka 35,000 dollar waa ka daarid biilka siinay JJ101 waa biil reference numberka waa door aan sameeynay waa ka weli wuxuu ku leeyahay waxa ku yaala waxa kugu harasan oo credit balance waxa debit balance inuu ku lahaanayna ninka la Akbar lacag 10,000 dollar ayaa weli ku lahaanayna oo wuxuu noo keenay 35,000 dollar maxaa noo keenay cash ayaa leedahay meesha debit waa maxay debit waxay noqonaysaa cash account credit waxay noqonaysaa Akbar noqoto qofka ninka lacagta inoo keenay marka enter ayaa leedahay enter save ay waa save garisnay dhacdada ugu dambeysa oo ah rent account to cash account oo ah expenses meesha ku jiro inagu ma lihiin waa kiro oo guriga ku jiro ama meesha aad ku godayna waa kiro marka kirada waxa bixinay lacag waxa bixisay 3,000 dollar marka sida loo sameeyo expenses hore oo soo qaadanay wax tagaysaa payment ay tagaysaa meesha ku qoran tahay payment dan maxaa leedahay alt c qaanada waxa sameynayna qaanada rentiga ayaa sameynayna oo ah ama kirada alt c runtii maxaa tagaysaa indirect expenses boo tagaysaa marka lacagta kirada aan bixin maxay 3,000 dollar ay ahayd daan fiirno waa tan waxaan bixinay waxaan bayt rent ayaa siinay master feature ayaa la guri ninka ka digana waxa la feature 3,000 ayaa siinay haddii isla eegno journal entry waa tan waxay noqonaysaa rent account to cash account kirada qaanadii kirada waxaan bixinay lacag ayaan bixinay lacagta bixin noqonaysaa 3,000 dollar ay noqonaysaa marka lacagta bixin 3,000 dollar enter ayaa leedahay enter marka waxa bixinay cash ayaa leedahay bay cash safe ما شاء الله marka waa dhameynay transaction dhan waa dhameynay marka waxa rabnaa inaan ogaano answerka inaan ogaano jawaabta company-ga maxaa ka soo baxay maxaa faa'iidahaysan maxaa khasaarahaysan maxaa hadda in tan isla faano tan waa maxay gross profit waa maxay waa totalka guud oo faa'iidada waaye oo laakiin waxa loo expenses kharashaadka kama inuu goonin waa faa'iidada guud waaye tan waa maxay waa net profit waa faa'iidadii aanu helnay company-gu helnay oo laga gooyay kharashaadkii waxa soo haray 18,400 tan waa maxay waa balance sheet waa lacagtii oo dhan wixii kharashaad ku baxay oo ah 326,400 oo ah total lacagta guud kana waa maxay waa closing stock waxa waaye wax tasmaa waa maxay waa remaining goods meherada marka alaab iibinay marka taayiradan ii soo iibsanay 10 xabo maxaan iibinay 8 xabo ayaan iibinay maxaa remaining maxaa harayno ah 2 xabo labada xabo qiimo ku fadhiyaan maxaa kaloo soo iibsanay 20 xabo ayaa soo iibsanay 20 xabo marka taayirada soo iibsanay maxaan iska iibsanay oo saaxiibkeen naga iibsaday macmiilkeena deen naga iibsaday 15 xabo marka halkaan maxay noo haraya 15 hadii la gooyo 5 xabo ayaa soo haray 5 xabo halkaan ku soo hartay iyo 2 xabo halkaan ku soo haray maxay total isku noqonayaan 7 xabo 7 xabo taayiradeena ah total wax isku noqonayaan haraaga hal lacag 16,000 dollar tan waa maxay waa salary creditors oo ah deenta inaga lagu leeyahay oo deen ayaa naga inagu dhiban oo ninkan marka deen ka soo qaadanay lacag 3,000 dollar ay ahayd waa 10 taayir ay ka soo qaadanay ala taayir wuxuu ku fadhiyay 3,000 dollar marka 3,000 dir gulta waxay noqonaysaa 30,000 dollar ay noqonaysaa 30,000 dollar maxaanu bixinay lacag waxa bixinay 22,000 dollar ayaanu bixinay marka maxaa deen nagu ah 8,000 dollar tan waa maxay waa salary debtors oo ah deentan anagu kuleenahay macmiilkeena deen waxa kuleenahay waa kan
waxaan ku leeyahay 15 taayir ayaa ka iibinay cala taayir wuxuu ku fidhay 3,000 oo dollar haddii 3,000 oo dollar lagu dhafto 15 taayir waxay noqonaysaa 45,000 muxuuna inoo keenay macmiilkeena muddo 5 cisho kabacdi wuxuu inoo keenay 35,000 oo dollar marka maxaa isagana deen ku lahaanayna 10,000 oo dollar inaga deen waxaa naga maqan 10,000 oo dollar baa naga maqan inagana mahradan wax lagu leeyahay 8,000 oo dollar kana waa cash waa 3,400 waa lacagta aan cadaan ku haysan oo khaanadeena inoogu jirta cadaanka cashka ah oo wax deen inooga maqan jirin qofna lacag ku lahayn wax mataqaana marka mataqaana muxuu ahaa akoonka ku jira laakiin lacagta cashka aan haysano waa 3,400 oo dollar marka haddaan fiirino journal inta haddaan fiirino companyga aan eegno balance sheetka aan tagno isagaa inoo sheegay wax kasta marka balance sheet baa leedahay dan waxaa leedahay meesha ku qoran tahay F1 oo ah details faahfaahinaysi waa kan total wuxuu ku leeyahay 3,26,400 waaye tirada guud oo totalka ah waxay meerada balance sheetka waa 3,26,400 waa saxsanaanay haddaan eegno gross profit faa'iidada guud haddaan eegno ama net profit ama faa'iidada saafiga ah oo faa'iidada guud wuxuu inoo sheegaya profit and loss qotay ku ogaanay laakiin hadda waxa ku ogaanay xagga meesha ku qoranta liability xagga daaqada dhinaca bidix xigta waa qaybta deynta waaye qaybtana waa asset waa meherada wax alaabta iska leedahay waaye oo dhan marka hadda halkaas la eegno maxaa inaga deyn lagu leeyahay secondary creditors hadda hor isla arkaynay waa maxay waa 8,000 oo dollar wax lagu leeyahay inaga deyn hadda halkan ka eegno waa kan lacagta lagu leeyahay waa tan waa 8,000 oo dollar muxuu software kun inoo sheegay secondary debtors deynta inagu dadku leena waa imisa waa 10,000 oo dollar waa kan secondary debtors waa 10,000 oo dollar ayaa inaga naga maqan waa tan waaye tan waa maxay waa closing stock waa remaining lacagtii 7 xabo taayir inoo harsanaa lacagta qiimaha maxay noqonaysaa lacag waxay noqonaysaa 16,000 ayay noqonaysaa hadaan waa kan closing stock remaining the goods waxay noqonaysaa 16,000 oo dollar ayay noqonaysaa marka dhammaan waa saxsanaanay hadda tagno qaybta profitka iskee bay leedahay profit and loss account maxaa khasaara maxaa faa'iida inter ayaa leedahay ku dhufanaysaa waa tan details ayaa leedahay dan xaqani kuu sheegan si fiican ku cadeynaya marka wuxuu ku leeyahay gross profit faa'iidada guud oo dhan maxaa xagga kor ay ku qoran gross profit faa'iidada guud oo dhan maxay noqonaysaa 23,000 ayay noqonaysaa waa tan gross profit faa'iidada guud marka expenses ka laga jaro kharashaadka 23,000 ayay noqonaysaa faa'iidada guud oo saafiga ah net profit waxa faa'iidada saafiga ah marka expenses kharashaadka laga gooyo waxay noqonaysaa 18,400 oo kharashaadka dhan laga bixiyo deynta ka bixino shaqaalaha inoo shaqeynaya ka bixino kirada ka bixino korontada bixino wixii dhan marka expenses bixino maxaa inaga cadaan ahaan inoo soo 18,400 oo ah net profit waa tan halkan ay kugu sheegayaa marka 8,400 net profit marka total waa saxsanaanay saas inta ayuu cashirka maanta ku saabsanaanaya haddaan ka sii faahfaahiyo aan ku dar waa maxay akoonka sales waxaan iibinay alaabta iibinay lacagta waxyaabaha iibsanay oo inaga iibinay dhan maxaa 72,000 oo dollar ayay noqonaysaa lacagta wax inaga iibsanay inaga oo dhan lacagta marka xisaabsano xaggana waa maxay purchase account waxyaabaha inaga soo iibsanay oo dhan oo lacagta ku bixinay 10 taayir iyo 15 taayir oo waxay isku noqonaysaa lacag 7,000 oo dollar ayay isku noqonaysaa marka maanta cashirka inta ay ku saabsanaanaya labada khaanadood ayaanu inagu cusbaa khaanadan oo ah purchase-ka oo muddo ka bacda lacagta bixinaysay iyo khaanadan oo ah sales-ka inaan deyn alaab ku bixinay oo deynta muddo ka bacdina loo keenay labada khaanadoodna hore ayaa hadda ayaa faahfaahiyey cashirkeena maanta inta ay ku saabsanaanaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh